بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود الكسور دوادا وركا هابين تلفزيون كعالمي في OS سمية داير سلادة يا وركا عوال كذا كل سعسين دون تهدوا الله ودلو قلاد أخبارات كاد كود داود دونتان وحكم ده مدعوينها جمهورية فدرالك الصومالية ومجد كيس بهيسيق إسلام ككوتو كذي صلاة جنازة مرحوم محمد عمر السالحي أو شريكو قريودي مقالة مقديشو مشرح عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه أو سيكولو لوجا هذلي دلكي لوجستي الله ونحرستي إكران تهليل أو كتر سند هيئة نبسوجد النساء دجال مياشا الشباب ويسكفوجي دلكي لوجستي الله ونحرستي إكران تهليل أو كتر سند هيئة نبسوجد يسردون كقرن كصومالية النساء qaar kamid ah ehelada ikraan tahliil oo ka soo horjeestay hadalkii ka soo yeeray hay'adda nabad sugidda NISA ee ahaa in gabadhoodii u gacan gashay al-shabaab isla markaana ay dileen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo madaxtooyada kula kulmay mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya akhbaraadka dibadda daawadayaal warkeena ku daawan doontaan waxa kamid ah dagaal culus oo u dhaxeeya xoogagga Taliban iyo maleeshiyaadka iska caabinta dooxada Baashinjir oo ka dhacay gudaha dalka Afghanistan aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa masjidka isbahaysiga islaamka ku tukaday salaada janaasada Allah u naxariistay marxuum Maxamed Cumar Saalixi oo shalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho faafahinta warkaas waxa la diyaariyay wariyaheena Aadan Cali Axmed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu masjidka isbahaysiga islaamka ee magaalada Muqdisho maanta ku tukaday salaada janaasada marxuum injineer Maxamed Cumar Saalixi oo shalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya marxuumka ayaa lagu aasay qabuuraha Sheekh Cali Suufi ee degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho waxaana marxuumka uu ahaa haliyay ku suntanaa dal jacayl hawlkalnimo iyo waliba wadaniyad madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay goobta janaasada ayaa waxa uu marxuum Maxamed Cumar Saalixi ku tilmaamay inuu ahaa khabiir ku takhasusay maababka badaha iyo waliba dhulka isagoo sheegay in aqoontiisa iyo waliba ay aragnimadiisa ugu faa'iideeyay difaaca badeena madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in marxuum Maxamed Cumar Saalixi uu ahaa shakhsigiisa u ururiyay wixii maabab iyo waliba heshiisi ahaa ee ku saabsanaa badeena kuwaas oo inaga lumay xilligii burburka injineer Saalixi Maxamed Saalixi qof walba waxba lagu xasuustaa qofka markuu dhinto amalkiisu la aada aakhiro oo ilaahay la hortagaa qofka muxuu ka tagay maxaa lagu xasuustaa ma aha qofka wax lagu xasuusto maal ma aha qofka wax lagu xasuusto guryo la jeexdo inta kontraadi u lahaa qofka waxaa lagu xasuustaa wax caam ah oo ummadda ka wada dhaxeeya inuu ka shaqeeyay oo ummadoo dhan ay manafacsato oo ay ka faa'iido marxuumka wuxuu nooga tagay waxaad maqlayseen muranka badda oo 6 sano soo jiitamayay wuxuu ahaa hormoodka yuu ahaa waxay ahayd wax caam ah ummadda Soomaaliyeed kulligood indhaha ku wada hayaan oo qulubtooda mideeyay waxa kaliya ummadda Soomaaliyeed mideeyay waxay ahayd baddaas isaga iyo avocado munashar maan oo iyadana ka timid family wadaniyiina aabaheed uu ahaa Janaal Sharmaan ilaahay caafimaad ha siiyo cimri dheer iyadu waxay ahayd avocado lawyer bay ahayd marxuumka injineer Saalixina wuxuu ahaa khabiirkii badda topografiyada yuu ahaa oo ku takhasusay oo khabiir ku ahaa surveyada maababka badaha iyo dhulka waxa weeye 30 sano burbur ah wax alla wixii ahaa dokumenti wixii maabab ahaa wixii heshiisyo ahaa waa naga burbureen sidoo dalka nooga burburay meel walba adduunka u tagay inuu ka soo aruuriyo wixii la isku haystay maxaa yeelay marka maxkamad la tago maxkamadda adaa iska leh kaliya kugu xukumaysaa waa inaad keento cadeymo way wanaagsanayd intuu noolaa inaan dadka barno
laakiin ilaahay baa nafta haya waxaan lahayn marka maxkamadda ay soo dhammaato oo go'aankeeda la gaaro dadkii mudnaa ha lagu sharfo ha la siiyo abaalmarin bilad sharaf ha la siiyo wixii ugu dambeeyey hadalkiisa laga hayo waxay ahayd ilaahayow nafta igu sin inta go'aanka baddu ay soo noqonayso maxaa yeelay wuxuu geliyey habeen iyo maalin aqoontiisii iyo wakhtigiisii iyo xitaa dhaqaalihiisii ayuu geliyey sidii uu u kaabi lahaa gacan u siin lahaa looyaradii Muna Sharmaan gabadheenna iyadu naftigeeda waxaan uga faa'iidaysanay aqoonteeda ee looyarnimo waxay noo raadisay looyaradii adduunka ugu fiicnaa oo badaha yaqaanay iyo noo raadisay markii looyaradii wanaagsanaa iyadu keentay iyo isagii oo khabiir ku ahaa tobograafiyada markay is heleen haddee waxay Kenya gelisay oo muran badda ina dhex yaalay inay 4 jeer dib u dhigto ay wajihi weydo awoodeennii aqoon oo isagu khibraddeeda lahaa iyo awoodeennii sharci yaqaannimo looyarnimo oo looyaradii ee gabadhaasi khayr allaha siiye Muna Sharmaan ee keentay waa wajihi waayeen waxay keentay in siyaasad laga dhigo oo annagii nalagu barashar gareeyo oo la yiraahdo laga soo celiyo awood dhaqaale awood siyaasadeed naloo adeegsado saaxiibo shisheeye naloo adeegsado oo nala geliyo xaalad aad iyo aad u adag waa markii ay ogaatay Kenya dacwadaanu inay tahay dacwad wadan burburtay aanan xarayn inay ay tahay dad isdiyaariyay oo yaqaana shaqada yaqaana wadaniyiina inay hogaaminayaan dacwadan waxaad lama aqoon wuu isqarin jiray wuu is ilaalin jiray nin xishood badan buu ahaa maxaa yeelay waxa weeye wuxuu ahaa kabtanka tiimka ayuu ahaa hogaaminaysa khibradda iyo aqoonta gabadhana waxay u ahayd walaashiis ka yar oo kabta isaga ilaa shalay gabadhu waa ooyeys haddaan la hadlay saacad ka hor waa ka samri la'da maxaa yeelay waxay og tahay wax kasta in lagu dayay labadooda sida annaga wax walbana loogu dayay in lagu dayay laakiin marnaba aysan qaadan ama aqbalin wax ka yar baddaas Soomaaliya iska leh annaga iska leh ummadda Soomaaliyeed waa dhaxal reeb mustaqbalka carruurteena iska leh kuwaan awaaha u nahaa iska leh Soomaalida dhalan doonta 200 sano yaa iska leh kadib dhalan doonta iska leh musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa si kulul uga hadlay dilkii la sheegay in loo geystay Ikraan Tahliil oo ka tirsaneyd hay'adda nabad sugidda NISA Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay dilkii la sheegay in loo geystay Ikraan Tahliil oo ka tirsaneyd hay'adda nabad sugidda NISA waxa uu sheegay in Ikraan Tahliil loo dilay xog ay haysay isagoona soo jeediyay in xilka qaadis lagu sameeyo taliyaha nabad sugidda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir بسم الله الرحمن الرحيم waxaan marka hore rabaa inaan xanuunka la qaybsado waalidiinta ay ka dhalatay Ikraan Tahliil Faarax maama Qaali Guhaad iyo aabaheed Tahliil Faarax intaba maadaama hay'adii nabad sugidda oo ayada gacanta ku haysay uguna gordambeysay Ikraan inay ayaga xaqooda ay jirtay ay sheegeen inay dhimatay geeridaas waxaan u tacsiinaynaa waalidiintii dhalay xanuunkana waa la qaybsanaynaa midda labaad runtii hay'adda nabad sugidda waxay qayb ka tahay rajiimkii 4 sano uu hogaaminayay iyo barka madaxweynaha hadda muddaxileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku caan baxay nidaamkaas argagixisnimada ah kula dhaqmaya shacabka Soomaaliyeed iyo dadka siyaasadda kula jira oo idilba oo waxaad ogtihiin taxanihii soo dhacay dalkan oo ugu horeeyo in gacanta loo geliyay hoggaamiyihii Cabdikariin Qalbi Dhagax weeraradii lagu qaaday dadka siyaasiyiinta ah dadkii la argagax geliyay ee dowlad goboleedyada joogay dadkii magaalada Muqdisho lagu weeraray oo madax hore ay kamid yihiin dad mucaarada intaba waxaas oo dhan waxay dhaqan u ahaayeen
hay-addan ayaa saldhig u ahayd hoggaankeedana wuxuu ahaa madaxweynaha hadda muddaxileedkiisa dhammaaday waxaan la kulannay dad badan oo hay-adda ka tirsan oo xirfad leh kuwa ka tegey kuwa buul laga dhigay oo howlgab la geliyey markii ay ka qaylo dhaamiyeen sida dhaqanka hay-adda uu yahay iyo kuwa shaqadii laga joojiyey intaba waxay dadkaas sanadaha badan loo tababarayay hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda isku raacsan yihiin hay-adda inay noqotay meel qurmoon oo runtii fasaad oo ka jiro kana shaqayso argagixiso iyo aamusinta iyo caburinta codka shacabka waxaa cad in waxa loo dilay ikraan ay tahay xog ay haysay oo ay gacanta ku haysay oo ay ka baqeen dadka hoggaanka hay-adda ah inay faafiso sidaas daraaddeed yaa waxaan ugu baaqayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble oo asagu aanan horey uga tirsanayn rajiimkan haddana u haysta awood sharci mid akhlaaqeed iyo mid dowladeed intaba inuu tilaab ka qaado arrintaas si loo badbaadiyo dhowr arrimood oo halis ku ah jiritaanka dowladnimada midda ugu horeysa ay tahay dadku inay sharciga gacantooda ku qaataan maadaama sharciga aan la dhowraynin waxaa ka dhalanaya dadku inay ayaga sharciga gacantooda ku qaataan labo inuu hay-addan sumcadda beeshay kalsoonidii aaminaadii dadka weysay sababta ugu wacanna ay tahay hoggaankeeda iyo inta asaga ku xiran ee la shaqaysa dhibaatada ay tahay inuu ka wareejiyo waa arrin degdeg ah oo urgent ah waa arrin waajib qaran iyo mid akhlaaqi ah in uu hay-addaas si dadku ay kalsooni ugu qabaan oo aaminaadeeda loo soo celiyo hoggaankeeda inuu bedelo saddex inuu arrintan baaritaan ka sameeyo madax bannaan oo dad ka tirsan xilaalinta iyo dad ka tirsan dadka khubarada ah ee ka shaqeeya hay-adda ee ku takhasusay dambi baarista oo ka tirsan CID-da oo hore iyo dadkii ka soo shaqeeyay guddi madax bannaan oo lagu kalsoon yahay oo asaga toos u hoostaga oo xaqiiqda ka gungaara arrintan in la keeno tilaabna laga qaado lagu qaado natiijadii ayagu ay keenaan runtii maanta Soomaali asaga eegaysa inuu cabsado maaha waa taariikh waxa qormaya waxa guntamayana waa taariikh oo ku badbaadinaya magaca sumcadda dadnimada iyo dowladnimada iyo qaranka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed horan u sheegnay 4 sano ku celcelinay qaabka rajiimkan u dhaqmo habdhaqankiisa sidoo yahay sida uu ka dhigay dadkii iyo Soomaaliyeed in asaga iyo argagixisada aysan kala duwaneyn habdhaqankoodu isku mid yahay wada shaqeyntooda ay caddahay waxaa la joogaa xilligii aad iska celin lahaydeen xumaanta aad iska diidi lahaydeen waxa intaas lagu soo dhaqay oo in lagu dhameystiro hadda ay tahay waxa la sugayo way tabar daran yihiin intii way ka tabar daran yihiin way ka qaab daran yihiin xilliga aan iska qaba lahayn ayaa jirta dadka ku taamaya dalka inay doorasho nabad ka dhacdo inta dadka noocaas hadiisa nabadgelyada ay maamulayaan riyo maalmeed ay ku jiraan waxaan ugu baaqayaa madaxda golaha wada tashiga qaran iyo dadka siyaasadda ku loolamayo dhan oo ay kamid yihiin dadka u tartamaya xilalka sare ee dalka inay iska dhigaan arrinta meel ilaa ay arrintan ka gungaarayaan xaqiijinteedana ay u howlgalaan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa iska fogeeyay dilka Ikraan Tahliil oo ka tirsaneyd hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA faafaynta warkaas waxaa la diyaariyay wariyaheena Yuusuf Maxamed Axmed iyadoo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka qoraal ka soo baxay xalay lagu shaaciyay in hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka baaris dheer kadib ay sameeyeen ay ku ogaadeen in Ikraan Tahliil ay al-shabaab ka afduubteen magaalada Muqdisho isla markaana ay toogteen warar ka soo baxay ururka al-shabaab ayay maanta kaga hadleen warkan waxayna shaaciyeen inaysan wax lug ah ku lahayn isla markaana aysan ka dambeeynin dilka hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka ay sheegtay in al-shabaab ay dileen Ikraan Tahliil oo kamid ahayd saraakiisha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka qoraal ka soo baxay al-shabaab ayaa lagu yiri kama dambeeyno waxbana kama ogni dilka gabadha lagu magacaabo Ikraan Tahliil ee u shaqeynaysa hay'adda NISA la yaab ayay nagu noqotay in sirdoonka dawladda nagu misabido dilka gabadhaasi sida dadka Soomaaliyeed ula fajaceen warkaas ayaynu annaguna la fajacnay ayaa laga soo xigtay mas'uul u hadlay ururka al-shabaab hooyada dhashay Ikraan Tahliil oo lagu magacaabo Qaali ayaa markii uu soo baxay warkan NISA ay ku shaacisay in al-shabaab ay dileen gabadheeda ayaa waxa ay sheegtay in gabadheeda aysan dilin al-shabaab isla markaana ay ku maqan tahay gacanta hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Yuusuf Maxamed Axmed VOA TV Muqdisho qaar ka mid ah ehelada Ikraan Tahliil oo ka soo horjeestay hadal ka soo yaray hay'adda nabad sugidda NISA
ee ahaa in gabadhoodii ay u gacan gashay al-shabaab isla markaana dil loo geystay. waxaa mar kale la diyaaraa faafahinta warkaas wariyayna Aadan Cali Axmed. qaar ka mid ah ehelada Ikraan Tahliil oo ka mid ahayd hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa waxay ka soo horjeesteen hadalkii xalay ka soo baxay hay'adda kaasi oo ay ku tilmaameen in Ikraan Tahliil ay u gacan gashay dagaalamayaasha al-shabaab isla markaana ay dileen sida ay hadalka u dhigeen. qaar ka mid ah eheladan oo rafidyaanka maanta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa warkaasi ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin. Fartuun Faarax Axmed oo Ikraan Tahliil ee Dawa ayaa sheegtay in warkaasi uu yahay mid been abuur ah isla markaana lagu marin habaabinayo kiiska gabadhooda, waxaana ay madaxda ugu sareysa dalka ugu baaqday in ay jawaab degdeg ah ka bixiyaan arrinkaasi. xalay waxaan soo gaartay ama aan Facebook ku aragnay Ikraan in la dilay oo shabaab dileen. arrintaana waxa sheegay NISO. Ikraan shabaab ma dilin, maalinna ma uusan arkin. xayndaabka NISO ay ka wadato Ikraanna shabaab soo ma gali karo mana joogo. marka waxaa la yaab ah oo dawladana ku ceeb ah oo cid walbeeto oo maqashan ayna qaadan karin. shalay maqnaashaheedii Ikraan kama ayna hadlin dawladda. waan hadalnay, gabadhaasaan naga maqan, wax badan aan hadalnay, waan dacwoonay, meel walbaan tagnay. maalinna nin mas'uul ah jawaab kama uuna bixinin. xildhibaanada ku matalo madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, ra'iisul baarlamaanka, gudoomiyaha gobolka, ururka haweenka cid ka hadasho ma ayna jirin. ururka dhalinyarada intaba cid ka hadasho ma ayna jirin Ikraan maqnaashaheedii. dawladdii marka shalay gabadhii maqnaashaheedii aan ka hadlin oo naga dhibaatoonin in maanta ay dhahdo Ikraan waa la dilay, shabaab baa dilay ay Facebook soo dhigaan. horta waxaan la maqlin oo la arkin. sharafaday moodeen horta waa sharaf dilay ku tahay ayaga waa mid ugu horeyso. ayaga ceeb ku tahay. qof xaydaabkooda ku jiro ayaga ay wateen oo marqaati ay leedahay in ay hadda ay dhahan shabaab baa dilay. midda kale waxaan rabaa inaan sheego Ikraan laptopkeedii ninkii jibiyay magaciisa saddexan waan haynaa oo laptopkeedii jabsaday oo WhatsAppkeedii jabsaday oo Facebookgeedii jabsaday. markii loo baahdana kullee xilligeeda noo gaaraysaa insha Allah hadii alla idma magaciisa saddexan iyo aqoontiisa intaba waan haysanaa. midda kale sawirka ay soo saareen oo ay gashan tahay in taraaxada jaalaha iyo dirac jaalaha ay wadato waa sawirka teleefanadeeda ku jiray. haddii ayna NISO gabadhi ayna arkin ama ayna haynin ama ayna dilin intay ka keenay sawiradeeda anaga aan haysanin ay soo saarteen meeshay leeyihiin sawirkaas ay leedahay Ikraan. على كل حال gabadheeni Fahad Yaasiin kula rajiis Yaasiin Faray wadna qabad iyo intii la halmaashaba ayagaan ka rabnaa ayagaan kaga fadhinaa wayna ka shalaynayaan hadii Ilaahay idmo. xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku metela beesha ay ka dhalatay Ikraan Tahliil oo la hadashay warfideenka ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay iyaduna in aan hadalkaasi ka soo baxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA uu yahay mid aan marnaba lagu qanci karin. waxa ay ka digtay wada shaqeyn dhex mari karta al-shabaab iyo waliba NISA maadaama ay ku doodayso in gabadha ay wateen qaar ka mid ah hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA. waxa meesha ka dhacay iyo waxa ay soo faafiyeen intaba inaysan wax sax ahayn saxna noola muuqanin. Ikraan waxay ahayd sarkaal ka tirsan hay'adda nabad sugidda. Ikraan waxay ku dhex jirtay hay'adda meesha laga maamulo xarunteeda dhexdeeda. sida oo xildhibaanka hore noogu sheegay xildhibaanka kamid ah xildhibaanadeena baabuurka la tusay oo ahaa sarkaal nabad sugid ah gaarigi uu watay in maanta ay soo yeertay Ikraan waxa dilay al-shabaab yani waxay ku dhici kartaa oo kaliya in ay hay'adda nabad sugidda ayaga wadeen ay gabadhina al-shabaab gacanta u galiyeen ay al-shabaab iyo nabad sugiddu ay ka dhaxayso wada shaqayn hadayna saas ahayn waxaan ognahay annaga al-shabaab maanta ma imaanin shalayna ma imaanin 13 sano ilaa 14 sano dalkan ay qayb ka haystay ay maamulayeen dadka ay dilaan sida ay u dilaan meelaha ay ku dilaan intaba wax muuqda waay maalmihii la soo dhaafay waxaan ognahay gabar ay dileen meesha ay ka qabsadeen la ogyahay waxay soo keeneen banaan cad ayay ku toogteen dadka isku soo bixiyeen siday ku dhici kartaa ama loogu sheegi karaa Ikraan shabaab dilay 2 bilood iyadoo la laayahay kadib Ikraan meesha lagu waayay waa xarunta nabad sugidda dhexdeeda meel uu qof gali kara ma aha meel uu mas'uul gali kara ma aha meel uu shabaab iyo wax u dhow ama ay tagi karaan ma aha marka waxaan ka rabnaa hay'adda nabad sugidda arinta ay idaacadda ka sheegeen ama ay raadiyo Muqdisho ka sheegeen ma ahin dad ku qancaayo wax lagu qanci karana ma ahan. Aadan Cali Axmed VOCV magaalada Muqdisho. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa madaxtooyada kulan kula qaatay mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay wasiiru dowlaha arrimaha siyaasadda wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya Mr. Ridwan Hussein oo welinaya safiirka Itoobiya u fadhiya Soomaaliland Ambassador Saciid Maxamed Jibriil iyo mas'uuliyiin ka socday wafdiga wasiiru dowlaha kulan ay yeesheen mas'uuliyiintani ayaa waxaa looga hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhaxeeya labada dhinac ee Soomaaliland iyo dowladda federaalka Itoobiya kulanka ayaa la isku soo hadal qaaday arrimaha la xiriira isku socodka labada dhinac ee ganacsiga iyo iskaashiga horumarineed ee wadada Berbera ay ugu horeyso iyo isticmaalka dekada Berbera oo uu xusay wasiiru dowlaha in dalka Itoobiya uu baahi weyn u qabo dekada kala duwan muhiimad gaarna ay siinayaan dekada magaalada Berbera madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulankaasi waxa ku wehelinayay wasiir ku-xigeenka hore arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah haddana ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Liibaan Yuusuf Cismaan iyo mas'uulka socday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland gudoomiyaasha magaalooyinka Gaalkacyo Puntland iyo Galmudug ayaa maanta ka qayb qaatay kulan looga hadlayay amniga guud ee gobolka Mudug Cabdi Xasan Awoowe ayaa cadaaday inooga soo diray gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhinaca Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur ayaa shir gudoomiyay shirka amniga gobolka Mudug shirkaana way ka soo qayb galeen gudoomiyaha gobolka Mudug ee Galmudug iyo gudoomiyaasha degmada Gaalkacyo ee labada dhinac waa Puntland iyo Galmudug sidoo kale waxa kulankan ka soo qayb galay saraakiisha booliiska gobolka Mudug ee labada dhinac waxaana kulankan diiradda lagu saareeyay arrimaha amniga gobolka Mudug gaar ahaan iskaashi dhexmara labada maamul iyadoo shirkan uu qayb ka yahay shirar looga hadlayay arrimaha iskaashiga amniga ee labada maamul oo maalmihii la soo dhaafay ka soconaya magaalada Gaalkacyo kadib markii labada maamul ay iclaamiyeen inay iska kaashanayaan dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab iyadoo ay jiraan ciidamo iyo gaadiid dhanka Puntland ka socda oo lagu biiriyay howlgalka ka dhanka ururka Al-Shabaab ee ka soconaya koonfurta gobolka Mudug gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhinaca Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in kulankan muhiimadiisu ay tahay sidii labada dhinac ay uga wada shaqeyn lahaayeen arrimaha iskaashiga amniga isagoo xusay in maamulka gobolka Mudug ee dhinaca Puntland ay ka go'an tahay in markaasi labada maamul ay iska kaashadaan arrimaha ammaanka gudoomiyaha Sanyare waxa uu sheegay in kulamada looga hadlayo arrimaha iskaashiga gaar ahaan amniga ay sii socon doonaan toddobaadkii la soo dhaafay ay ahayd markii saraakiil ka socotay laamaha amniga Puntland ay tageen degmada Wasil halkaas oo ay abaabul dagaal oo ka dhanaa ururka Al-Shabaab ay ka wadaan ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo iskaashanaya dhawaan ay ahayd markii ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay soo baneeyeen deegaano ka tirsan koonfurta gobolka Mudug oo ay ka mid tahay degmada Camaara halkaas oo ay muddo 2 toddobaad ku dhow gacanta ku hayeen balse ay dib u qabsadeen ururka Al-Shabaab maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa sheegay inay qaadi doonaan dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab oo looga safeynayo deegaanada maamulka Galmudug oo dhan hase ahaatee ururka Al-Shabaab ayaa xilligan waxay gacanta ku hayaan dhowr degmo oo waaweyn oo ka tirsan maamulka Galmudug sida Xardheere, Ceeldheer, Ceelbuur iyo deegaano kale halkaas oo 10 sano ugu dambeeyay ay gacanta ku hayeen Cabdi Xasan Awoowe VOS TV Cadaado xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jubbaland ayaa ka tacsiidiyay geerida u timid Allah u naxariistay marxuum Maxamed Cumar Saalixi oo shalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho faafaynta warkaasi waxa inoo sii dheereynaya waryaheena Maxamed Aadan Xasan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland iyo odayaasha dhaqanka degmada oo kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo ayaa ka tacsiiday geerida ku timid Allah u naxariistay injineer Maxamed Cumar Saalixi oo shalay ku geeriyooday magaalada caasimadda Muqdisho xildhibaanada odayaasha dhaqanka ayaa marxuumka Allah uga bariyay inuu qabrigiisa u waas inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waa geerin naxdin leh waxaan u ducaynaynaa inuu Ilaahayga weyna macbuudka Ilaahay u naxariisto kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo dadkii uu ka tagay oo Soomaaliyeedna Ilaahay uu bedelkiisa khayr Allah siiyo dadkii uu ka dhinto oo jifado ahaana Ilaahay weyna macbuudka Samir Jibriil ka siiyo in muddana ku maqnaa oo ku xanuunsanaa dalka Turkiga Soomaalidu waxay tiraahdaa nin weyn wadkiisa waa yaqaanaa markii xanuunkiisa iyo xaaladiisa uu arkay yaa wuxuu codsaday in lagu celiyo Soomaaliya guud ahaan waxaan u tacsiyeenaynaa ummadda Soomaaliyeed waayo ninka ma ahay nin qoys ah ma ahay nin qabiil ah wuxuu ahaa qaran inna lillahi inna ilayhi raaji'un geeridaas naxdinta leh yaan ka tacsiyeenaynaa ehelkiisii iyo ummadda Soomaaliyeed samar iyo iimaan Allah ka siiya dadku dhalin ilaa 19 baa lagu tilmaamay dadkiisa iyo dadkay sii dhaleen taariikh ahaan saas baa la tilmaamayaa geeridaas naxdinta leh oo nagu timid
oo ummadda Soomaaliyeed ku timid oo tiiraanyada leh yaan ka tacsiyeynaynaa. ilaahay fardowsaha ugu bishaareey Allah ka raali noqdo taariikhdiisii taariikh nololeedkiisii lama soo koobi kara laakiin rag baa ishaare wax ka taabtay rag iga horeey baa wax ka taabtay wax la soo koobi karana maaha ummadda Soomaaliyeed magaci iyo mugi uu ku lahaa kullay noloshiisa inta uu soo qaatay dadka nin wax badan taray buu ahaa. Allah u naxariistay injineer Maxamed Cumar Saalixi ayaa maanta salaad janaasada lagu tukaday masaajidka isbaahaysiga magaalada Muqdisho waxaana laga codsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay u soo duceeyaan marxuumka. Maxamed Aadan Xasan, VOS TV. markana akhbaaraadka dibadda dagaal culus oo u dhaxeeya xogaga Taliban iyo maleeshiyaadka iska caabinta dooxada Baashinjir ayaa ka dhacay gudaha dalka Afghanistan. Talibanku waxay sheegeen inay la wareegeen deegaano qasaare culusna gaarsiiyeen kooxda iska caabinta ee NRF balse kooxda NRF ayaa sheegtay inay gacanta ku hayaan marinada laga galo dooxada Taliban ay ka dileen boqolaal dagaalamayaal ah. Baashinjir waa gobol kaliya ee aan wali gacanta u gelin xogaga Taliban waxaana la rumaysan yahay in boqolaal dagaalamayaal ah ay halkaasi ku sugan yihiin. kooxaha iska caabinta waxa ku jira madaxweyne ku-xigeenkii hore Afghanistan Armullah Saleh ciidamada hore uga tirsanaa militariga Afghanistan iyo maleeshiyaad maxalli ah oo hogaaminayay hogaamiye qabali ah Maxamed Mas'uud. Taliban ayaa hore u sheegtay inay wada hadal kula wareegi doonto dooxadani balse waxay sidoo kale sheegtay inaysan meesha ka saari doonin suuragalnimada inay sidoo kale xoog kula wareegi karaan. guud ahaan daawadayaal warka habeenaad kala socoteen telefishinka caalamiga VOS waa naga intaa.